qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona Israel waxa ay ka tiri madaxweynaha cusub ee la doortay ee wadanka Iran. barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Xisbullah oo toddobaadkan mar kale lagu qaarijiyay gudaha koonfurta wadanka Lebanon. barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa. barnaamijka qodobada kale aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Hamas waxa ay beenisay in dagaalyahanadeedii ay ku sugnaayeen iskuul ay xasuuq ay ka geysatay Israel. barnaamijka qodobada kale aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah agaasimaha sirdoon ee Mareykanka oo ku wajahan magaalada Dawxa si loo dardargeliyo wada hadallada u dhaxeeya Israel iyo sidoo kale Hamas ee la doonayo in xabadda looga joojiyo magaalada Gaza. sidoo kale waxyaabaha aad daawan doontaan waxaa ka mid ah malaayiin qof oo isugu soo baxyo waaweyn ka wada magaalada Tel Aviv iyo sidoo kale Qudus. waxaa lagu dalbanayaa in Israel ay si degdeg ah ay heshiis ay ula gasho kooxda Hamas ama xukuumadda Netanyahu in ay iscasisho. qodobadaasi sidoo kale waxyaabihii kale nagu soo kordhay ayaad ku daawan doontaan barnaamijka intuu hawada uu ka baxayo. daawadayaal wixii aragtay iyo fikri aaraad inoo hayso waxaa nagula wadaagi doontaa qaybta hoose faalada adigoo ka soo aragti dhiiban doona warbixinada goordhow inoo bixi doona. markan waxaynu ku hormari doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee Israel ayaa waxa uu ka hadlay madaxweynaha la doortay ee dalka Iran. wasiirka waxa uu bartiisa X ee hore loogu aqoon jiray Twitter uu ku sheegay in hadda caalamku ay soo dhaweyn doonaan madaxweynahan qunyar socodka ah ee wadanka Iran hadda loo doortay. Mas'uud Pezeshkian ayaa waxaa la tilmaamay in uu yahay qof durbaba u gacan haatiyay wadamada reer galbeedka waxaana uu tilmaamay khudbadiisii ugu horeysay ee laga sii daayay TV-ga qaranka dalkaasi Iran in uu doonayo wadamada in uu saaxiib wanaagsan u noqdo. sidoo kale waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee Israel uu sheegay in hadda caalamka uu arkayo sida ay Iran ay u doonayso in ay ula saaxiibto wadamada caalamka. balse waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la qaado tallaabo ciidamada ilaalada kacaanka dalkaas Iran loogu darayo liiska waxa loogu yeero argagixisada. Israel dhawaanahanba waxa ay baqdin xooggan ay ka qabtay dowladda dalka Iran iyo awoodeedii maadaama hadda ay isku diyaarinayso duulaan ay ku qaado wadanka Lebanon gaar ahaan koonfurta wadanka Lebanon oo ay dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka wadaan kooxda Xisbullah. waxaa jirta ayaa la yiri isku dayo ay dowladda dalkaas Iran ay ku doonayso in ay ku taageerto kooxdaasi. wasiirka oo hadalkiisa sii wato waxa uu shaaca ka qaaday in markaan shacabka dalkaas Iran ay isku diyaariyaan in la bedelo wadaadka dhinaca diinta ugu sareeya ee dalkaas Iran Ayatollah Ali Khamenei. madaxweynaha hadda la doortay ayaa waxa uu ra'yi iyo talabo ku yeelan doona ayaa la yiri in isbedel lagu sameeyo wadaadkaasi iyo sidoo kale wadaado kale oo ka mid ah wadaadiimidida wadankaasi Iran. wadaadka ugu sareeya dhinaca diinta ee wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa da'diisu hadda waxa ay tahay 85. madaxweynaha la doortay ayaa waxa uu noqon doona ayaa la yiri cidda abaabuli doonta qofka bedeli doona Ayatollah Ali Khamenei. madaxweynihii geeriyooday ee dalka Iran Ibrahim Raisi waa qofkii loo saadaalinayay in uu bedeli karay wadaadkani. daawadayaal wixii aragtay fikri araa warbixintaasi waxa nagula wadaagi doontaa qaybta faalada ama commentiga adigoo ka soo aragti dhiiban doona arrimaha dalka Iran iyo sidoo kale Israel u dhaxeeya. markan waxaynu eegi doonaa agaasimaha sirdoonka ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku wajahan yahay magaalada Dawxa ee dalka Qatar iyadoo wafdiga uu hogaaminayay agaasimaha sirdoon ee Israelna ay ka tageen magaalada Dawxa iyaga oo kulamo la qaatay madaxda wadanka Qatar. agaasimaha sirdoon ee dalka Mareykanka waxa uu doonayaa in uu cadaadis uu ku saaro madaxda kooxda Hamas ee uu ugu horeeyo madaxa xafiiska siyaasadda Hamas Ismaaciil Haniya ee ku sugan magaalada Dawxa sidii ay Hamas ay u gali lahayd heshiis degdeg ah oo xabadda looga joojinayo magaalada Gaza. Hamas inkastoo ay qayb ahaan ay aqbashay soo jeedinta ka timid madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ee ku saabsan in xabadda laga joojiyo magaalada Gaza si gargaarka bini'aadanimo shacabka loo gaarsiiyo. haddana waxaa jirta qodobo dhowr ah oo ay tanaasulaad ay ka sameyn weysay. waxaa qayb ka ah in ay ciidamada Israel guud ahaanba ay magaalada ay ka baxaan. haddase waxaa la tilmaamayaa in muddo 6 toddobaad ay suurtagal ay noqon doonto in xabadda laga joojiyo magaalada Gaza. taas ayaa waxa ay ka dhigi doontaa ayaa la yiri in heshiiskaasi sidoo kale ay qayb ka noqdaan in maxaabiis isweydaarsi labada dhinac ee Hamas iyo sidoo kale Israel uu dhex
وهجاك داوديال وربحنا كلا أي إنه صعدة بلسمر كان قدر يروح حيسيسا ما لا إذا الكيس هذا وهذا كل جين دواء دوس رئيس صاحب ذو بالهوية سادية مرقوها هدو صعد كل بقى يدواء صف صاحب نجاهه هسي هذا أرد كواس إحنا تكبد دواء الصفا صاحب نجاهه سجنا دواء سحنا وحترك صفا مديسين وحلا سيستأجرين دواء الصفا والدواء دبيعها ونهر المرقى حنونك كالجوستي ذا دبر حنونك يوحي لمده ودواء كريم أهلا نمر صدو جيركا أي نقادن كران تدك ويلدا هي قوة عيارها ديلا يا أنت كعبانيسا مرقها هي كالجوستي ذا واحد كيري كرتا دمان قبلض دلك مريكنكا يوروب يا أفريقيا يدو دواء الصفا أي تاي مركي لبعض ولا كان الصومالية جارهن مقدشو دواء الصفا وحاسو صارا صفا بيوتي كامباني وحفينا واحد كده حرتا يوانا دشان شدكاga markaan waxaynu fiirin doonaa dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Suudaan ayaa waxa uu shir uga furmaya magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar waxa ku shiraya magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar dhinacyada isku haya siyaasadda dalkaasi Suudaan kuwaasi oo qaarkood durbaba maalintii Sabtida ay gaareen dawladda waddanka Masar ayaa isku dayaysa in ay dhexdhexaadiso dhinacyada dagaalka u dhaxeeyo ee dagaalka ka wada magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan iyo sidoo kale gobolada waddankaasi ilaa 10 milyan oo qof ayaa dagaaladaasi waxa ay ku qasbeen in ay guryahoodii ay ka barakacaan muddo 15 bilood in ka badan waxa ka socda dalkaasi Suudaan dagaal aad u xooggan oo u dhaxeeya ciidamada qaranka dalka Suudaan iyo kuwa RSF oo ay dawladda Imaaraadka ay gadaal ay ka reexayso dawladda dalka Masar iyo sidoo kale dawlado kale oo ay Mareykanka ay ku jirto waxa ay isku dayayaan sidii xabadda loo damin lahaa balse dhinacyada isku haya gaar ahaan labada ciidan ee qaranka iyo sidoo kale kuwa RSF ee dacmi sariic ayaan ilaa hadda wufuudooda waxa aysan tagin magaalada Qaahira inkastoo saraakiil hadashay shaaci ka qaadeen in la filayo saacadaha soo aadan in ay Qaahira ay isugu tagi doonaan balse waxa yar ayaa la leeyahay rajada laga qabi karo in nabad lagu soo dabaalo waddanka Suudaan fadhigankii ka horeeyay waxa fashil uu ku soo dhamaaday wada xaajood ay dawladda Mareykanka iyo dawladda Sacuudi Carabiya ay garwadeen ay ka ahaayeen oo ka dhacay magaalada Jidda labada dhinacna waxa ay isku afahmi waayeen in ay ku heshiyaan awoodda siyaasadda ee waddankaasi Suudaan daawadayaal halkaas ayaan doonayna ku soo gabagabay warbixino wixii xilligan ka taagnaa caalamka iyo guud ahaan bariga dhexe tani kulanti dam waxa idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo